dhalashadu waxay ruux walba uga dhigan tahay fursaddii ugu qiimaha badnayd ee uu helay abidkii, la'aanteedna uusan ka baxayn caalamka waxaan jirin. aad iyo aad ayay ugu weyn tahay. qaar ka mida noolayaashana xus gaar ayay u samaystaan. inkastoo ujeeddada iyo waxtarka arrintaasi isku si loo arkin, waxay aniga iila muuqataa inay tahay xeelad la isku ilowsiinayo maalmihii adkaa iyo wixii ruuxda ka dhacay ee gafaha. warwarka culus ee waxaa soo aadanaa lagu suuxinayo, yelkadeeda uma baahnin inaan ku mashquulno shuqullada noolaha kale. waxaad sadaradan indhaha ugu haysaa waa inaad la noolaato xog ku saabsan xeeladahayga, dhagartayda iyo waxa adiga dheef ku ah oo aan kuu sheegi doono. filka uu aadamuhu tirsado waxa uu bilaabmaa maalinta uu uurka hooyadii ka soo baxo. aniga aad xog warankayga ka bogan doontid, dhimashadaydana aanad maqli doonin. waan ka duwanahay aadamaha. qodobka ugu horreeya aniga iyo adigu aan ku kala leexannay waa in filkaygu uu ka bilaabmay maalintii aan calool galay. tan labaadina waa in da'dayda aniga iyo cid kale toonna aanay garanayn. sida aan dib kaaga sheegi doonaba, kolkii uu taranku aadanaha u bilowday ayaa wixii ku duugnaana ay dibadda yimaadeen. aniguna uurkii ugu horreeyey ayaan ku helinayay. tan iyo maalintaas aan uurka ku jiray oo aan curdin ahaa, iyo maantoo aan xididaystay wacdaro badan ayaan dunida ka dhigay. wax walow kownkan ka dhacaya uumiyuhuna uu ku lug leeyahay, saamayn mug ballaaran ayaan ku leeyahay. xataa waxaan diidanahay aniga ayaa u yeela xiisaha keenay in lagu baratamo. haddii aanan la legdamayn jallaafooyinna aanan u bixiyeen, guushu macna uma yeelateen. waxaan uurka kula lamaanaado 9 biloodna aan ku mataanaysnaado. waxaan dhashay waagii aadamuhu dareemay baahida ay u qabaan qaybsiga waxa u dhex ah iyo isxukunka. tan iyo xilligaas marmar mooye inta kale talada aniga ahay. waxaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay inaan keligay hanto wax loo wada hamuun qabo lana wadaagi karo. wax kastoo aan libta ku qaadan karana waan sameeyey. xishoodkuna xilliga ayuu cadowii noqday. qof kasta oo doonaya inuu miyaha kale ka xoog bato ayaan ka dhigtay qolfoofkii aan ku adeegan lahaa. waxaanan u kala xushaa hadba sida ay waqtiga iyo waayuhu ila ekaadaan. mar haddii dhinaca kale uusan quusanayn, libaxladi waayey inuu marmar iga guulaysto waa waxaan la dafiri karin. inay isaga u bogaan anigana ay didiyaan waxay iska noqotay wax caadi ah. isagoo kalena inay helaan waxay himiladooda iyo riyadooda kaga jirtaa baarka ugu sarreeya. nacaybka uu aadamuhu ii qabo waa midka ku kalifay in mar walba maanka ay ku hayaan dheragta iyo baahidana iyaga la qaybsada. ima xasuustaan haddiiba ay dhacdo inay xasuustaanna waa uun mar ay nacdalayaan ama dhibtii dhacday ka taariikhaynayaan. waxaa aafo ugu filan inaan xil qabtay ama aan si unastaan ugu noqday. inkastoo aan bilowgii filkayga kuu sheegay, haddana gullay ma tiriyo qarnina hadalkiisa daa. waxaan ku mataanoobay aadanaha aan uurkiisa ka soo baxay. laabtiisu hadday sifaysnaan lahayd, xumidda kuwumanna uu muqoonin lahaa, xataa magacayga lama maqleen. waxaan ahay wax kasta oo xuna uu sameeyo iyo lidkii uu ku fahmi lahaa samaanta. waxaan ahay waxaysan ahayn inuu noqdo. dunida guudkeeda ma uusan iman qof nool oo aan jeclayn in warkiisa la maqlo. dhammaantood waa xukun doon. qoys, ganacsi, xer, arday, ummad ama duunyo, iyo wixii alla u calfo u talintooda kama maarmaan. xukun jacaylka raadintiisa ayaan ka dhashay. waxaan ka unkumay ladqabadda iyo dhagarta ay ku caanamaalaan dadku. waxaan cadow u ahaa lilaahida ka hortagta ku dhiirashada musuqa, fisqiga, dilka iyo dilaalashada waxa u dhexeeya dadweynaha. lugooyada iyo leexleexashadu waa naaskii laygu ababiyey markii aan dunida imi. laqwiga iyo laalaabku waa quudkii dunida laygu siiyey tan iyo maalintii aan ilkaystay. si kastoo ay nolol ugu qaylo dhaansadaan, iskuma luro inaan siiyo wax yaroo layr ah. waxaan dunida ku soo biiray maalintii uu baayac mushtarigu noqday calooshii u noole aan qofna u joojin. waxaa daartan xanuunka badan la ii soo gelbiyey maalintii uu go'aansaday in isaga mooye aanay dunida ku hadhin cid kale oo anfaco suuban calaashataa. waxaan ifka ku soo biiray maalintii uu qalinka ku duugay in dawo aan wax doorinayn mooye mid kale la ysku dabiibin. waxaan uurka hooyaday ka soo baxay ammintii ay wadaadadu isku dareen xaqa oo la qariyo qowmiyadahoodana aysan la falgelin, khamiiska iyo tusbaxoo qudhana ay ku faramintideen. waxaan dunida imi markii xerta maadiga ay maaddada u nolosha moodeen, fahankeedana ay ka salgaari waayeen. gorofta iyo istiilo xidhan oo qurana ay isugu biyo shubteen. waxaan kunka soo galay maalintii ay siyaasiyiintu dan iyo damac ku diimeen, dayac iyo darxumada raciyaddana ay ka indhasaabeen. arradnaanta bulshadu waa hubka ugu weyne aan ku dagaal galo. waxa halkaa dunida dhigayna waa iyada. duubablayda iyo fooddeeruhu way la jaan qaadeen. fankii aadanuhu ku nasan lahaa waxna isugu sheegi lahaa waa aniga maroorsaday ee mooradana ka saaray. mar kastoo ay aadanuhu bartaan dhaqan xun, samaan horena ay ka guuraan, waxaan helaa dhiig cusub. kol walba waan dhalinyaroobaa.
shayaadiintana waan iskaalmaysanaa. Anigu ma yihi shaydaan balse waxaan ahay cidda uu isagu shaqeeyo, maadaama aan ahay xumidda dunidan ka jirta. Isaguna wuu qurxiyaa buulkayga. Wuxuu u taagan yahay hirgelinta kacankayga barakaysan, kama uu harsado kamana uu hoydo. Waa heegan had walba u heelan hirgelinta hankayga. Bogaadin iyo nabdaadinna uma hayo. Saama laha badbaado kale balse hiif iyo haaraan oo dhan ayuu mudan yahay. Anigaygama mudnaa labadaas midna. Aadanaha ayuu tan dambe ka mutaystay. Si kasta iyo goor kastaba kalama masuugaan. Hase yeeshee waxba ma yeeli karto tan iyo inta ay iyagu aniga ii hoggaansan yihiin. Duco aan loo dadaalin iyo habaar aan daacad laga ahaynina wax badan ma dooriyaan. Badbaado iyo naxariis barwaaqo iyo ladnaan maalintii aan dhashay korkayga ahaato. Oon iyo alalad hamuun iyo hanfi, rafaad iyo ragaad maalinta aan dhiman doono korkeeda ahaato. Waaba haddii ay jirto bal ku dhegag dhiganahan una dhug lahaw in yaroo ka mid ah sida aan u noolahay ilaa iyo hadda. Xog warankani waa daacad hadal. Adiga ayuuna kugu socdaa. Haddii aad digaal ugu gudbiso cidda dunida kugula nool ama kaaga dambayn doontaa, waad ku mahadsan tahay. Inuu wax ku tarana waan filayaa, inuu ku dhibana waa suurtagal. waayo muuji oo ma kala garanayo dhurwaa ama aadane mid aad tahay.